maktabadda assalaam nairobi kenya waxaa farxad weyn u ah inay idin soo gudbiso muxaadaradan عطاياك فضل ورحمك جود رزاياك خير قضاك حكم عطاياك فضل ورحمك جود رزاياك خير قضاك حكم ومهما دعوت لقيت النوال ومهما شكرت بسطت النعم إليك ابتهالي وفيك الرجاء ومني دعائي ومنك الكرم إذا ساء حالي وضاق الفضاء وجدتك يا رب فيما ألم أعيش زماني أسير الذنوب فتقبل مني دموع ندم فأما احتياجي لغيرك لا وأما إليك فألف نعم فهل أنا لولاك إلا ترى وهل كنت لولاك إلا عدم فإن همني في الحياة شان جعلت الرضا من لدنك أهم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه walaalayaal kusoo dhawaada mar kale mu'tamarkeennii afraad ee jaaliyadda soomaaliyeed ee Holland iyo nawaaxigeeda waa maalintii saddexaad ee mu'tamarka waa muxaadaradii labaad ee mu'tamarka ee maanta ahaan waana muxaadaradii toddobaad ee ilaa iyo hadda baxda waxaana inoo soo jeedinaya sheekheena alfaadil alxabiib sheekh maxamed cabdi umal muxaadarada cinwaankeeduna uu yahay makaanatu lmar'i fi lislaam mar'ati fi lislaam aan idhaahdo amba makaanka ay leedahay ama booska ay leedahay uu islaamku siiyey haweenka muxaadaradaas oo sheekheenu inoo soo jeedinay waxaan ku leenahay falyatafadal mashkuuran ma'juuran wafaqahu llah بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة عنوانك محاضرة ومكانة المرأة في الإسلام بوسكا ومرتبطة وإسلامك لغي هويني ذا مسلمة دعا iyo sida uu u sharfay ee uu karaameeyey waa muhim maxaa yeelay shaki wuxuusan ku jirin dumarku haddii ay hagaagaan أجيال iyo xadaaraad
iyo ummaday dhisaan haddii ay halaabaanna ummado dhan iyo xadaaraad bay dumiyaan way sabab u noqdaan dumidooda waana macnaha nabigeenu sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamayo markuu leeyahay xadiidka Abi Saciid al-Khudri fi sahih Muslim fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisaa فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء الدنيا ده إسكتشر أبو النبي صلى الله عليه وسلم دمر كان إسكتشر فتنة دي أقوه الرئيسي ريب بني إسرائيل وحيكب الله بتسي دمر ريب بني إسرائيل بابيني فتنة ضوضي امتحان كود دمر بوك بالله كذلك حديث أسامة يا سعيد بن زيد بخاري مسلم يسوع صارين النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء قضاء شيء كما تجيب النبي صلى الله عليه وسلم فتنة رجع وقدر ضمرك وقدر بدن وقدر بدن يفسد أيها النبي صلوات ربي والسلام عليه وتلمام يا مركا وحديث تا نصوص تاسي تلمام يسا dumarku goorta ay dariiqa ka leexdaan oo fasaadaan oo la ihmaaliyo way dariiqa ka baxaan ummadda waxay keeni karaan dumideeda ummado horaana horay ugu dumay hadday hagaagaan oo dumarku ay dumar hagaagsan noqdaanna waxay dhisi karaan waxaan raggu dhisi karin jiil iyo ummad iyo xadaaraad iyo waxaan caadi ahayn bay sabab u noqon karaan oo dhisi karaan taasi waxay ku tusaysaa in mudnaan la siiyo waxa barnaamijka ku saabsan dumarka khaasatan xilliga hadda la joogo oo shaqo laga dhigtay in alla intii ilaahay xarigiisa ka furatay ayaa shaqo waxay ka dhigatay dumarka wax la yiraahdo xuquuqda dumarka wax la yiraahdo dumarka xoreyntooda wax la yiraahdo kan yaani waxa weeye ujeedaduna ma aha iyaga in loo danaynayo waxa la doonayaa in la khadeeco oo la siro oo kadibna ujeedo lagu gaadho ma aha macnuhu dumar masaalixdood baa laga shaqeynaya sidaas daraadeed ahmiyadda iyo mudnaanta ay dumarku leeyihiin guud ahaan ayaa cadowgeenu dareemay markaas waxay ka shaqeeyeen markay muslimiinta ku soo duuleen oo casrigan hadda casrigii tagay iyo kan iyo duulaankii muslimiinta lagu burburinayay meelaha ugu khatarsan iyo furimaha ugu khatarsan ee laga soo galay dumarka ka mid ah waxay xoog saareen inay dumarka muhiimadoodii seejiyaan guryahana ka saaraan maryahana ka dhigaan duurkana u bixiyaan markii taas ay sameeyaanna taqriiban waxay og yihiin inay damaanayaan inuu gurigu dumayo ilmihiina dayacmayaan meesha ummad baa ku luntay haddii gurigii duumo ilmihiina dayacmaan mujtamaciina waa dayacmay iridaasaa marka laga soo galay oo waxay dhihi jireen raggii mustacmiriintii ama muxtaliintii cala alasax waxay dhihi jireen ka'sun waghaaniya tafcalaani fi taxtiimi alummati almuxamadiya akthar mima yafcaluhu 1000 midfac فأغرقوها في حب المادة والشهوات هذه جيران كوب خمراء إيوه هويني غانية وهيستا أيا أمد محمد بربورين تيدا إيا بابئين تيدا وحي كسا منكرا وحوصا كن مدفع أين كسا منكرا كن قنطال إيا كن مدفع waxayna sameyn karin ayaa waxa ku sameyn kara umada maxamed bay dhahaan koob khamra ah iyo gabadh banaanka u soo baxday oo qaawan oo muxuu ahay heesays sidaas daraadeed waxay yiraahdeen waxa tiim bisaan dumarka maadada jacaylkeeda iyo shahawaadka dumarka shahawaadka hal jeclaysiyo la soo saaro yaani meeshii ay ku barakeysnaan iyo khayrkoodii hal laga soo saaro waxaa kaloo kamid ahaa yaani maasuuniyada nimanka la yiraahdo aqwaashooda
يجب علينا أن نكسب المرأة، فأي يوم مدت إلينا يدها فزنا بالحرام بده، وتبدد جيش المنتصرين للدين. وإن أن كد ذا ليدهن إن دمرك كسبنا دمرك إن حقنا صومران waxay maalin kasta oo haweentu gacanteeda inoo soo taagto ay xishoodka jabiso oo asturka jabiso oo dhowrsoonaanta jabiso oo gacanta inoo soo daagto iskeen siiso maalinkaas ayaynu ku guuleysanay ujeedadeennii. wadaadadii diinta watayna ciidankoodii maalinkaas uu jabay, wax la wixii diin u hiilinayay maalinkaa waa jabay ciidankoodii. maxay ku jabeen? calashaani waxa way haweentii baa laga kasbaday. ayagoo fikirka ka duulay iyo mabda'aas baa caalamul islaami waxa loo keenay in dumarkii la saaro, marada laga dhigo, xijaabka laga dhigo, xishoodka laga saaro, akhlaaqda laga saaro, bitaali kadibna loo isticmaalo sidii faas lagu burburiyo ummadda iyo sharafkeeda iyo karaamadeeda. maadaama marka ay ahmiyadda leedahay way mudan tahay in laga hadlo mowduuco oo la bayaaniyo, khaasatan gabadha ama haweenta muslimadda waxyaalaha aad loogu duufsaday waxaa ka mid ah in la yidhaahdo islaamku wuu ku dulmiyey, islaamku xorriyaddu kaa qaaday, islaamku waa ku xumeeyey, islaamku waa ku yaso wuu ku xaqiray. gabadhii in iyadii ilaaheediiba laysku diraba, ilaaheedii iyada laysku diro, iyadoo rabbigeed tabaaraka watacaala uu karaameeyey oo sharfay, haddana in lagu diro diinteedii lagu diro akhlaaqdeedii lagu diro. waryaa eedda dhigay dumarkiiyo ilaahay dhex taala rag baa dhigay. soomaalida waxay yidhahdaan muxuu ahaayey waraabe iyo caruur eedda dhex taala rag baa dhigay baa la yidhahdaa. eed baa dhex taala. ilmaha yaryarka markay yihiin waraabo mayna arkin, gurigay joogaan, laakiin sidii uun loogu cabsiinahay war ruwaaga war waraabaha war iska jir loo lahaa, ilmihii cuqdad buu u qaaday waraabihii sooma. marka cuqdadan yaa dhigay? ayagu ismayna arkine rag baa dhigay sooma. marka gabadhii muslimadda ahayd walilasaf iyadoon diinteedii ka warhaynin wax badan ogeyn baa waxaa lagu diray rabbigeedna waa lagu diray, diinteediina waa lagu diray. waxaa la yidhi diintana balaayo dhan kuule. markaasaa waxay bilowday inay diintii ka baxdo, ay tidhaahdo waa xoroobahaya. na xaggeedu xoroobi, xaggeedu xoroobi, ilaahay bay ka xoroobi oo addoommay u xoroobi. xaqiiqadu waa taa, rabbigaa tabaaraka watacaala cubuudiyadiisa intaad ka baxdo addoommaha ku addoonsadeen baa xorriyad loo tusay. dumarkii marka waa la siray oo muxuu ahay waa laga caqli badiyey, oo in badan oo ka mida waa laga lug meersaday, oo dhib aan caadi ahayn baa ku dhacay. in yaroo ilaahay u naxariisto mooye tabaaraka watacaala. marka waxay u baahan tahay mawduucaas in aad yacni laysu dul taago. islaamku muxuu horta gabadha muslimadda u qabtay? taasi waxay caddaan kartaa markaan wax yar dib ugu noqonno islaamka ka hor dumarku maxay ahaan jireen. xadaaraadkii hore, ummadihii hore, dumarka maxay ka rumaysnaayeen. markii lagu laabto xadaaraadkii ka horreeyey ama ummadihii mujtamacaadkii islaamka ka horreeyey, kulligood waxay ka siman yihiin in haweeneyda la yaso, in la xaqiro, in la dulmiyo bay isku waafaqsanaayeen. igriiqoo kale maalan waxay dhihi jireen waa qashin shaydaan ka soo jeeday dhihi jireen dumarka. waa sida alaabta suuqa la geysto la kala gatoo kale ahaan jireen. ruumaankaoo kale hadda reer yurubkani ka soo jeedaan, shicaarkoodu wuxuu ahaan jiray oy ka doodi jireen laysa lilmar'ati ruux bay dhihi jireen. haweenaydu waa uun jidh mooye ruuxba ma leh, ruuxba ma jirta, waa uun jidhkaas maayo. iyadana waxaa loogu talagalay inuu raggu ku shaqaystaan. siin oo kale ama jaynaha waxay dhihi jireen oy rumaysnaan jireen oo dumarku la dhaqmi jireen ninku inuu xaaskiisa iibsan karo suuqa intuu geysto, sida ceesaan suuqa intuu geysto baayacaya, waa laga iibsanaya. sidoo kale ninkeedu markuu dhinto xoolaha la dhaxlayay ku jiri jirtay, waa la dhexli jiray. sidoo kale wuxuu xaq u lahaa iyada oo nool inuu aaso, iyadoo nool intuu xabaal u qodo inuu godgeliyo xaq buu u lahaa. waa nidaamkii China wa.
furs oo kale Iiraaniyiinta sidoo kale dib aan yareen dumarka waxay ka rumaysnaayeen in si alla sidii la doono ninku ugu talin karo hadduu doono u dili karo sidoo kale muxuu ahaayay Israa'iiliyiinta ama Yahuudo kale waxay ictibaarin jireen oo kutubtooda ku qoran inay dumarku lacnad yihiin inay dumarku ay lacnad yihiin maxaa yeelay aadam lumidiisii iyo geedkii uu cunay dumarkaas xaawa soo wayd bade waa khuraafo xaawa soo waay saas daradeed dumarku sidooda waa lacnad tayib markay caadadu ku dhacdana sida xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam ayna la fadhiisan jirin mana ayna taaban jirin waxna lama cuni jirin wasakh la iska fogeeyay ka dhigi jirin carabta markaad u timaado haweenku wax ma dhaxli jirin bal iyaga la dhaxli jiray يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها وردمرك هدحلنا ليه سيو دحل جيران haweeneyda markuu ninkeedu dhinto wiilkiisa ayaa intuu yimaado ama qaraabadiisa nin kamid ah ayuu haweentu ka dhintay buu mara saaranaya maruu ku tuuraya maradu ku tuurto macna wax weey ana iskala waay agteeda lagama soo dhawaan karo haday xoolo leedahay ama uu guursan ilaan aabahood haweentu ka dhintay bay guursan jireen quraanku waa ka diiday ama hadii kale to intuu nin walba u diido oo meesha ay ku guumeysawdo ayuu marka xoolaheeda markay dhimato qaadan jiray sidii adoon uu leeyahay oo kale tuu ka dhigan jiray marka dhaxal lama siin jiray ragga bas wax dhaxli jiray laakiin dumarka wax lama siin bal iyaga la dhaxli jiray raggu waxay ugu tasarrufi jireen waa jaahiliyadii carabta dumarka waxay ugu tasarrufi jireen markay doonaan bay furi jireen markay doonaanna way soo celin jireen dalqada aan dhamaanaynin waligii yaalihi marna uu siideyn marna uu soo celin xaasna ma aha xaas la'aanna ma aha nin la'aanna ma aha ninna ma haysato mar wuu sii wadaa waad furantahay haddana waad soo ceshay waad furantahay haddana waad soo ceshay wax ka dhamaanaya maba haba sharcadu tirmaya waa qaldantihiin laba goor baad furi kartaa mar saddexaad hadaad furto bas way noqosho ma jirto sooma caadadoodu waxay inay dalqada aan xad lahayn waxa kamid ah markii ninku ka dhinto kale in ay intay buul cidla u dhisaan oo meesha geliyaan ayna ka soo bixin sanad kaamil ah oo qabays loo diido oo nadaafad loo diido oo meesha ay ku jirto oo isku urto sanad markuu u dhamaado ayay intay soo baxdo ay muxuu ahaay wuxuu noolaha kamid ah xayawaanaadka iyo ismarmarin jirtay xayawaan noola ah haday ismariso waaba dhimanayaaba waa jaahiliyadii carabta waxaa kamid ahaa masalan gabdhahay nacbaan jireen inay gabadh u dhalato waa nacbaan jireen maxaa yeelay waxay dhihi jireen ceeb bay noo soo jiiday quraanku waa ka sheegayo midkood inay gabadh u dhalato waa kaanaya markaas wuxuu leeyahay talow ma ceeb baad isaga dulqaadataa mise carradaad ka hoos marisaa waad iska aastaa waxan markaasuu iyadoo nool soo qabtaan bay gabadha yarta ah ee ay dhaleen bay aasi jireen wa'dul banaat waa mid quraanku aad uga hadlay war maxaad gabadhaada yarta u aasi balaayadana ceeb bay soo wadataa ama inta la islaayaa la qabsan doona ama meelahaas ay xumaan intay la timaaday garac iyo balaayo dhali balaayo bay ictiqaad xun bay ka rumaysnaa gabdhaha marka way nacbaayeen bal haweeneyda xaaska gabdhaha dhasha gabdhaha ay dhasho lafteeda loo nici jiray waa gabdha dhalay baa la dhihi jiray balaayo ku dhacday gabdhoon bay daadinaysa Soomaalida lafteedu cudurka way qabtaa imtixaanka jira Soomaa war maxaa gabdhaha maxaad u diideen gabdhihii waa la nacay waata quraanku aad uga hadlay oo qanciyay oo dadkii kala hadlay oo gabdhaha karaameeyay oo xaqooda u dooday يعني waxa weeyaan haweeneydii baa waxa loo nacaya calashaan waxa weey gabdhaha dhashay qisa dariifa yani haweeney kamida muxuu ahaay dumarkaas oo lala qabay ayaa malaha waxay ku curatay gabadh xaas kalena waa lala qabaa ninkeeda Abu Hamza la dhihi jiray markay gabadh ku curatay uu isaga tagay tii kale u go'ay markaasay gabadheedii yar iyadoo boodbootinaysa ciyaarsiinaysa ba waxoogaa geeraarkan yay akhrinaysa
waxay dhihi jirtay waxay lahayd ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين تالله ما ذلك في أيدينا بل نحن كالأرض لزارعين يلبث ما قد زرعوه فينا وإنما نأخذ ما أعطينا وقبل لقيتك حاس لقيتك وقبل لقولنا عيوة وحي هذا ورو حمزة محاكو دعي وانين كذي أو نوغو يمان لاي guriga nagu xiga unbuu joogaa waa tii kale gurigeedii waa guriga nagu xiga unbuu joogaa annagana naguma soo leexanayo ma wuxuu u cadhaysan yahay inaan uu gabdho dhalay eedda uu noo haystiyo dembigu ma gabdho inaan dhalay waa ilaahay baan ku dhaartay bay tiri taasi gacantanada kuma jirto maana gacan ku haysta inaan wiil dhaliyo inaan gabadh dhalo mise ilaahay baa keenay waxay tiri bal iskaba dhaafe annagu dhul baan nahay bay tiri haddaan dumarkii nahay dhul baanu nahay waana nala beertaa dhul baan nahay beertaana lagu ritaa waxaana dhexdanada ku nagaado oo yani minkanaga ku jira wixii kolba la gashado wixii nala siiyo baanan qaadanaa marka maxaan eedaan leenahay oo nalooga tagay maxay tahay sooma gabadhiyo calaacalayso waxoogaa buraanburayso tixdaa qaadayso gabadheedii boodboodinayso maqlay maalintii dambe markaasuu isla yaabay wuxuu sameeyey xumaanteedu ku baraarugay markaasuu gabadhii u soo noqday sooma dumarkii baa xataa loo nacay calashaani gabadh bay dhashay war gabadha yani cilmiga xadiidka waxyaalaha uu faa'iideeyey waxaa ka mid ah cajaa'ibta sideedaba gabdhaha dhalitaankooda iyo wiilasha dhalitaankooda dumarku shaqo kuma laha labka iyo dhadigu labaduba wuxuu ka yimaadaa ragga hadday gabdhuhu bataan oo dhashaanna adaa gabdhaha dhalan badan dhalay sooma waa xaqiiqo waaye yacni waxa weeyaan waxay yidhaahdaan manida ragga ayaa waxay tahay x iyo y waay sooma x iyo y waa labka iyo dhadiga manida raggaa xambaarsan laakiin dumarka iyaga ukuntooda waa uun way aqbashaa uun wixii soo gaadhay aqbashaa soo saas ma marka labku ninku ka imaan dhadiguna ninku ka imaanaya maxaad dumar ku haysataan marka maxaad gabdhaha u nacdeen soo khalad ma ah wax ilaahay bixiyey marka koowaad looma naco marka labaadna sababta iyagu ma ay laha gabadhu tay ka cabanaysataa iyada marka nacaybka ay dumarka nacbaayeen oo gabdhaha ay nacbaayeen jaahiliyadii carabta ayaa halkaa gaadhsiisnay cumar ibn khataab radiyallahu anhu kama fi sahih al-bukhari wuxuu leeyahay kunna fi al-jahiliyyati la na'uddu an-nisaa shay'an islaamka ka hor dumarka waxba maana ku tirin jirin wax qiimo lamayna nala ahay فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا markuu quraanki soo dego ilaahay quraanka ku sheegay xuquuqna u sheegay baa waxaan ogaanay buuri inay xaq nagu leeyihiin ama islaamka ka hor dumarka inay wax yihiin ba maana u haysanin buuri taasi marka waxa weeye dumar maxay ahaayeen islaamka ka hor islaamku seebu ka dhigay waay iyagoo saas markuu u yimid islaamku seebu ula dhaqmay islaamku wuxuu ka bilaabay mabda la yiraahdo an-nisaa'u shaqaa'iqu ar-rijaal inma an-nisaa'u shaqaa'iqu ar-rijaal wa hadithki nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi hadith Aisha Ahmad iyo Abu Daawud iyo Tirmidhi ibn Majah ay soo saareen yaani waxa weeye dumarku waa un ragga jeexoodii waay dumarku waa ragga jeexood waa qasiimatu ar-rajul waa qaybtii labaad noosha ibn aadamka raggu qayb waay dumarkuna waa qaybtii labaad baxna waxa weeyaan wixii xuquuq ah iyo wixii waajibaad ah ee raggu ay lahaayeen iyo wixii karaamo ah bay leeyihiin markii laga reebo masaa'isha qaarkood oo la soo reebo marka waa qasiimatu rajul xuquuq bay leedahay waajibaad bay leedahay sharaf bay leedahay karaamay leedahay yani waxa weeye islaamku waa sharaf wuxuu islaamku meesha ka saaray dhammaan qaababkii dumarka loo dulminayo dhan buu meesha ka saaray wuu xadeeyey qaarna bilkulliyo meesha ka saaray yani waxa weeyaan dumarkii dhaxal baa la siiyey aan dhinac loo dhaafi karin
dumarkii la iska dhaxli jiray waxa la yiraahdaa dhaxlina dumarka xor waay haweentu hadii laga dhinto iyada xor ah ninkay doontay guursan adiga ma xaniban kartid waa meesha Soomaalida lafteedu dhaqanka waxbay ka haysataa dhaqanka jaahili buu ah laakiin waxbaan ka haysanaa waxa weeyaan dumarka markii laga dhinto in la yiraahdo waa lagu dumaalayaa Sooma وبالتالي حرية مليت ninka walaalkii adeerkii qaraabadiisa un baa ku guursan karta حتى هذو ننحيه وين أقبشه لأن حوالنا جاك كبح ما وين كوي بسني ساس فرادت أنا جاكله ورساس ما هو أنتو حرية بيقول هذا هذه لقد أنتو عالم كان إنك ربطينك كجورس تماشي هذا يكون قناعه إني قرابة إنك كجورس أهلا وسهلا هذا يكون قناعه وإذا حق أمله هذا حنبتان ولا ديدي تمر كعب علينا يجي بعد حلسي ضلقذيه بالحذي قبله أي آسي تشيرين بقرآن كؤاد وقضاضي وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت نعيبك قبلها لقاها الله إلى الله تبارك وتعالى ويلاهده محوها حتى مركو كهل يرجع عرورته إلهي أضدك السينيو نوعية أيهين الله تبارك وتعالى وحور مريي ضمرك ضمرك كل مريي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما الله عدو دون وحوسية قبله الله قبل الله عدو ربنا وحوسية ويلل عدو ربنا وإسقو درع عدو ربنا وحوبك دقا مدليس عند لين صوما انت بالله به وفيرسو iyaga la hormariyo alla wuxuu yiri ciidu rabo wi gabdhuu siiya wiilasha iyaga sheegitaanka laga hormariyo marka Allah tabaaraka wa taala waa karaamay wixii dulmi lagu hayo dhan buu ka qaaday madaahirta iyo qaababka uu islaamku u karaameeyay muxuu ahaayay gabadha muslimada ah ama haweenka uu karaameeyay waxa kamid ah abuurista iyo dumarka jiritaankooda islaamku wuxuu ka dhigay nicmo weyn balaayo ma aha baasna ma aha sharna ma aha dararna ma aha bal waa nicmo aan laga maarmi karin nicmo aan laga maarmi karin Allah tabaaraka wa taala waa ka inoo sheegay wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma Ilaahi tabaaraka wa taala waa ka xaasaska idin abuuray si aad ugu xasishaan sooma نعمة وإله إن لوجه شكرية واجب آية من آيات الله والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة الله تبارك وتعالى وكإذن سيي محو حاسسك عرورت إذن كسي إيه حفدة خدم إذن أديقة وعرورت يسير لنا مركا دمركا شريتان كودي أبو رستوضة الله تبارك وتعالى وحوكا النعمة وماشا وحل بريي khuraafada dhahaysa dumarka abuuristoodu ama keenidoodu waa dhib war meehe waa nicmo ilaahi tabaaraka wa taala uu ku galadaystay dadka ku galadaystay raggo kale weeyaan bale inama an-nisaa'u shaqaa'iqu ar-rijaal waa raggo kale haday ragga keenidoodu ay darar tahayna dumarka keenidooduna waa darar haday ragga keenidoodu nicmo tahayna dumarka keenidooduna waa nicmo inama an-nisaa'u shaqaa'iqu ar-rijaal oo di ragga yaaba dhalayba يا رجع دلي دمر بعد دلي هذين دمر كتير لهين كائن كل بشر كمسي تيرين بشر كمسي كرا دمر الآن دمر واحترمه أو دلا أو من آدم ككورية أو بربارية هذين تيري من آدم كمسي كرا نين كليه صهنا أدون كان مو ذكر صوما نين كليه أدون كمر إسنان كرا إلهي بات تبارك وتعالى لبدن جنسي أبوري iskana abuuray oo iyaga dhexdooda iska abuuray isuna abuuray marka ma kala maarmaan noloshii baa ku wada taagan shariicadu dumarka waxay ku karaameysay takaaliifta shariicada inteeda badan rag iyo dumarka way ku sintay mabaadiida iimaanka waajibaadka shariicada intooda badan way ka sintay
wixii ragga laga rabo waa dumarkana laga rabaa wax yar baa lagu kala duway oo ay keenayso kala bedelnaanta abuurka ilaan isku mid ma ah isku awood ma ah isku qalbi ma ah isku caatifo ma ah kala bedelnaanta abuurku xikmadda rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu keenayaa axkaamta qaarkood inay ku kala bedelaadaan laakiin asalka axkaamta shareecada aqlabkeeda rag iyo dumarku waa isaga mid misaal baynu qaadanaynaa waa xadiidka ummu salama radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha waxay tiri rasuulka waxaan ku yidhi yaa rasuul allah ma lana la nudkaru fi alqur'an kama yudkaru rijal rasuulka ilaahay maxaa quraanka loogu sheegi laay sida ragga loogu sheegay hadan dumarkiina waxay tiri falam yaruni yawma idin illa wa nidaa'uhu ala al-minbar islaamaankiiba waxaan ku baraarugay bay tiro kada igu noqday nabiga minbarka saaran oo dhawaaqaya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi waxay tiri wa ana asrahu sha'ri falafaftu sha'ri marka aan dhawaaqa maqlayana timahan shalnaysanayay bay tiri oo hagaajisanayay markaasaan intaan timihii duuduubtay oo iska laalaabay baan waxaan u soo kacay bay tiri muxuu ahaay qolkii masaajid xaqiisa soo xigay markaasaan dhagta saaray bay tiri oo si aan u dhageysto bal nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegi doon markaas waxaan maqlay nabigu sallallahu alayhi wasallam ya ayuha an-nas inna allaha yaqulu fi kitabihi wardadu ilaahi kitabkiisa wuxuu ku yiri sidan maxay tahay innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وبيرس صفة كستو رجع الله شيء دمر كين والله شيء رجع مسلمين تا يدمر كمسلمات كا رجع مؤمنين تا يدمر كمؤمنات كا رجع إلهي أطيعة يدمر كأطيعة رجع رنت الشيء يدمر كرنت الشيء رجع صبراء يدمر كصبراء رجع خشوعة يدمر كخشوعة رجع وحصد قيست يدمر كوحصد قيست رجع صومن يدمر كصومن رجع فروج تودي حبنا هذا ترن كحفظي يدمر كحفظي رجع إلهي آذو حصة يدمر كإلهي آذو حصة إلهي وحو دياري أتشروين يتشنو دياري يا أم سلمة سؤال شهدي ولا ما جوابي ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال محار القرآن كان لو شيء لا يعني ورك وارد ماذا بمعنى وحويان صفاتك أما عقيدها النقطة أحكامته عبادته أخلاقه شريعة الرجل يدمر باللوجو تلقى له الرجل خاصكم معها سلذا سمرك ونوع كرامين حقي تكليفتي واجباتي أحكامتي رجل كلامته ولا كرامي وحلو كرامي آخر وحال يري هداد هوانت هنا وحال شقيستان لهذا هداد ننت هنا وحال شقيستان لهذا ما جرت وحال إلى هذا آخر وحال شقيستان هوان كان أجرك ولا قدمي رجنا والله ما يستري يعني جزاء يا أبا الجودك آخر والله السمية نول بوحي اللي يمين وبابالك سقاضني سيد ربنا تبارك وتعالى ويقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا تمركي يرجي ولا قول حب هوين يدو هذين النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت هوينتو هذا شنت إذا صلاة توكتو بشيء رمضان أي صومت أو فرجي هذا حفظه أو نينك هذا أطاعه ما أنت قيامه وحال له إريدها الجنة كاد وانت كقل أبى الجودكم مركا ما تشرت وحول الركبة سد برسي للصينية نين بعد ذوق تهايو سلادة توكتي بقول قرب على الأول من لابي أذوقنا هويني بعد تهايو سلادة توكتي طبعا قرب على الأول من لابي ما جرت صما
cinda allahi tabaaraka wa tacaala dumar iyo rag abaalku waa isku mid nin walba wuxuu la yimid buu leeyahy ma jirto wax la yidhaahdo midabta kor waxaa ka mid a musaawaadka ilaahay wuxuu ku simay tabaaraka wa tacaala sidoo kale yacni almuwaalaat waatanaasur isu hiilinta iyo xuquuqda ay leedahay hiilinta ah iyo isjacaylka iyo walaalnimada iyo isxidhiidhinta rag iyo dumarka waa ku simay isku mid buu ka dhigay waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacdin yani mu'miniinta ragga iyo kuwa dumarka ah waa dad walaalo isjecel waa dad isxiga waa dad isu hiiliya muwaalaadka sida ninku xaq u leeyahay bay gabadha muslimadda xaq u leedahay hadayna iyaduba ka xaq badnayn macna wuxuu ka kor qaaday islaamku dumarka dulmigii lagu hayay xataa dumarka xorta iska badaayay dumarka addoommada ah sidii la doono laga samayn jiray shareecadu meel adag bay istaajisay waxaa la yidhi ma dulmin kartaan ma garaaci kartaan ma dhibi kartaan mithaal waxaynu usoo qaadanaynaa xadiidka mucaawiyat bnu xakam oo muxuu ahaay uu soo saaray imaam muslim caleyh raxmat ullah mucaawiyat bnu xakam wuxuu leeyahay assulami kaanat lii jaariyatun tarca hanaman lii waxaan lahaan jiray buuhi gabadh addoon ah oo adhiga ii raacda fii qibali axad uxud dhanka uxud buurta uxud xaggeeday adhiga u raaci jirtay fa atlactuha daata yawmin maalin baan soo kormeeray buuhi waan soo maray iyadoo adhigii la joogta faidan idi'bu qad dahaba bishaatin min hanamiha markiiba yeybaa intay timid bay adhigii neef ka mida kala ka qaadatay adhigii bay la joogtaa waa gabadh addoon ah adhigiibaa yey timid oo neef bay la tagtay ka qaadatay wa ana rajulun min bani aadam buu yihi aasafu kamaa ya'safuun nin bini aadan aan ahayo waan xanaaqay sidii dadkuba u xanaaqaan sebaa yeydu kaaga qaadatay neefka fasakaktuhaa buu yihi sakatan baal dharbaaxaan iska qaba yidhi gabadhii laanna neefkiina xoolihii inay dayacday yuu taqriiban qiyaastaasuu qaatay markaan gabadhii dharbaaxay addoontahayd baa nebiga u yimid buu yihi sal lla alay slam markaasaa waxau yihi ya rasuula allah markaasu wuxuu yihi yani facadama dalika calaya nebigu sal lla alay slam gabadhii aan dharbaaxay addoonta ahay arrinkeedii waa igu weyneeyey hawl culus baad gashay miyaad dharbaaxday oo miyaad dishay waaba igu adkeeyey markaasaa waxaan ihi bu ihi intaan isku naxay ya rasuula allah afalaa actiquhaa rasuul ilaahayo maaban iska xoreeyo ma xoreeyaa haddaaban khaladka intaa leeg galay ma xoreeyaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay slam i'tinii biha iken la kaalay markaasaan u keenay bui nebigu sal lla alay wasalam markaasaa rasuulku wuxu uhi sal lla alay wasalam gabadhii addoontii buu la hadlo ayna allah buu ku yidhi ayna allah alla xaggee jira markaasay tidhi fi samaa kor buu jiraa bay tihi yani waxyaalahan dhulka yaalyaaliya asnaamtan ilaah uma taqaano halka mid ee kor jira kaasaa ilaah bay tihi man ana buu ku yidhi anugu yaan ahay markaasay tihi rasuulullah rasuul ilaahay baa tihi riwaayad kale waxay sheegayaan gabadhu mayna hadli aqoonine markii uu nebigu uri sal lla alay wasalam alle aaway farta unbay taagtay anigu yaan ahay saasay tiri bimacnaa allah ku soo dirsaday waa markaasaa nebigu wuxuu uhi sal lla alay wasalam actiqhaa fa inahaa mu'mina xoree buu nebigu uri sal lla alay wasalam waa mu'minad maxaa keenay in la xoreeyo dulmiga uu dharbaaxada iyo waxoogaaga u geystay soo saas ma xataa dumarkii addoommada ahaa ee lagu shaqaysan jiray ee la iska dili jiray ayaa nebigu salawaatu rabbi wasalamu caleyh meeshaa istaajiyey iska dhaaf dumarkii xor tahay iyaga warkooda iska badaa iska daa inay muslimo tahay xataa dumarka gaalada ah baa shareecadu waxay diiday marka dagaal lagu jiro muslimiintu dagaalamayaan in dumarka la laayo ciidan khaalid uu watay nebigu sal lla alay wasalam ayaa wuxuu arkay haweeney raggii la laayay dhexdooda taalla oo meyd ah markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam khaalid gaadhsiiye dumarka ha dilina dumarka ha laynina allahuma inay ciidanka soo raacdo dee dagaalka soo gasho meesheeda waay laakiin dumarka iyo caruurta iyo odayaasha iyo dadkaasi aan dagaalamin lama laayo xataa iyadoo gaal ah shareecada islaamku marka dumarka waxay ka qaaday dulmigii bay ka qaaday way sharaftay
oo waxay ku sharaftay markay hooyo tahay haweentu islaamku waa sharfay markay gabadh tahayna wuu sharfay markay xaas tahayna wuu sharfay markay hooyo tahay wuu sharfayo Allah tabaaraka wa ta'ala xaqiisa xaqa ku xiga waa xaqa labada waalid soo saasma wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وحق إله وحليلي وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي عقدم به ولوالديك قرآن الكريم كحق الله حق لبدا والد باكو حيقا لبدا والد مركي تماد يمادان نكوضي حق بدن هو يداك حق بدن ساس بلاد يدو حلقيه كرا حق الله waxaa ku xiga xaqa hooyada hooyo xaqeeda ku xiga macnaheena xadiiska nabiga tilmaamaya salawaatu rabbi wasalaam alayhi xadiis abu hurayra wuxuu yiri nin baa nabiga u yimi sallallahu alayhi wasallam markaas wuxuu yiri ya rasuulallah man ahabbu an-nas man ahsanu ahaqqu an-nas bi husni sahabati dadka ruuxa ugu xaqnimo leh saaxiibnimadayda iyo hagaajintayda iyo wanaajintayda ruuxa ugu xaqli dadka waa kuma nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ummuka hooyada waxaa idhi buuri uma man yaa ku xiga wuxuu yidhi ummuka hooyada waxaa idhi buuri uma man yaa saddexeeya ummuka hooyada uma man yaa afreeya abuuka buu nabigu sal ly sl aabbaha imise darajay ka weyn tahay ya saddex bay ka horeysaa darajada afraaddu markaa imaanaya ya weligiin diin iyo mabda sidaa u karaameeyey hooyo miyaad haysaan ma jiro waxaa lagu yidhi boqorkii madaxweynihii dadka dhan u talinayay sheekhii professorkii mutacallimkii kii dhaqaalaha iyo maalka lahaa milyaneerka ahaa waxaa lagu yidhi hooyadaa baa kuu talisa ya hooyadaa amarkeeda qaado janno haddaad rabtana lugteeda hoosteeda ka raadi Soomaali hadday duqowdo oo daawdo warkeeda iska badaa haddaad u adeegi weydo ood u shaqayn weydo oo saxarada ka tiri weydo oo kaadida ka tiri weydo oo dharka ka bedeli weydo oo aad intay nooshahay kasban weydo naar baad geli ya boqorka hooyaa u taliso boqoradu ah sheekha hooyaa boqoradu ah milyaneerka hooyaa boqoradu ah ya weligiin yaale xageed ku haysaan karaameynta noocaas reer Yurub iyo reer galbeed hooyo saama u karaameeyeen waa kuwan muxuu ahaayay xuquuqda haweenka iyo xoreynta dumarka iyo karaameynta dumarka waatana lagu lugooyee ya mise habar ilmaheedii ka tageen oo ay weheshanaysa ya maalinta dambana eygii uu guriga inta isaga baktido uu eygiiba hilibkeeda cuni wuxuu cunay intuu waayay hooyo wata Yurub iyo reer galbeed hooyo warkeedu wakaa islaamna hooyo halkaas u dhigay ma siman yihiin marka mise waa isu dhow ya waxa isu dhow ma bayna samaa'i wal ardi marka Allah shariicadani way karaamaysay haweenta ayadoo hooyo way karaamayso karaamo ayna ragga siin baysiis Sooma qodobka labaad way karaamaysay markay haweentu tahay gabadh way sharaftay waa gabadh waa la dhalay aabaheed baa xilka la saaray waxa la yiri ma xumeyn kartaan ma aasi kartaan ma karaahaysan kartaan ma dhibsan kartaan waa laga saaray dulmigi waa laga qaaday Allah tabaaraka wa ta'ala saan soo tilmaanay caruurta uu dadka siinayo nicmada ah dumarku uu hormariyay gabdhaha uu hormariyay waxa la yiri oo nabigu sallallahu alayhi wasallam ittaqullaha wa'dilu bayna awladikum caruurtiina cadaaladu sameeye gabdhaha iyo wiilasha u kala eexanina inaad wiilashaadana wax siiso ku daldasho gabdhahana qadiso oo tiraado kuwan ma rag kale u xirageli doonaan
xoolaha ayayna igala tegin maya waxaad wiilka siisa gabadha sii ilaahay ka baqa oo caruurtiina cadaalad u sameeyo buu nabigu sallallahu alayhi wasallam ma la dulmin karo sidoo kale nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu ku sheegay axaadiis fara badan gabdhaha korintooda iyo tarbiyeyntooda iyo waxbaridooda iyo ilaalintooda ajirka laga helo wiilasha korintooda lagama helo sida cinaayada gabdhaha uu siiyey shariicadu ay siisay xadiidka jaabir ibn cabdillah nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam man kana lahu thalathu banatin yu'wihinna ويرحمهن ويتكلف لهن وجبت له الجنة البتة بالنبي صلى الله عليه وسلم روحي صدح قبضود له oo saddexda gabdhood soo duma oo u naxariista oo u nuglaada oo kafaalo qaada oo waxbara oo muxuu ahaay hagaajiya wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam jannada u waajibtay si go'an oo shaki ku jirin waxay yiraahdeen يا رسول الله فإن كانت اثنتين هذي لبيهن كورن صدح قبضات بات شيكتين ننكي لبلا كورن أو كرصدا سفع عنه كوري وحبره النبي قحر صلى الله عليه وسلم اسقنا والله مد لبنا والله مد ضدكم مركة وحي هذا وحان إسلحين هذان مدنا ويدين له هل قبرنا إنه النبي قلت جواب تابعين له لكن وانا ويدين بدهن يا حتى هل كقبر marka wax way gabdhuhu kariimaad waxaan wiilasha lagu helin baa lagu helaa diinteenu saasay tacliintii aqoontii islaaxintii ilaalintii baridii guri fiican geynteeda nin fiican u doorideeda xataa ayada laguma halaynin oo lama dhihin ayadu uun ha tashatee si ayna meel xun uga dhicin aabaheed walaalkeed ayaa la yidhi meel fiican guri fiican nin fiican إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه من دين تيسي أخلاق دي سرالي أسكتهن ميل وناكسن قبدا جيا كوري وناكسن جيا انت كهر ريسانك عنت كوهيو كوريا جنات كو جليسان صوما مركا قبرتها هنا إسلامك waa sharfay waa karaamay waalidkeed buu qasbay waalidkeed buu amray si adag baa loo karaamay nabigu sallallahu alayhi wasallam alayhi gabdhaha aad buu u jeclaa salawaatu rabbi wasalaamu alayhi san caadi ahayn gabadhii ay gabadhiisu dhashay oo la dhihi jiray Umaama bint Abi al-Aas Zaynab baa dhashay gabadhii nabiga sallallahu alayhi wasallam nabigu awoobu ah salawaatu rabbi wasalaamu alayhi suu jeclaan jiray gabadha yarta iyadoo yar ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ayuu kor u hayay markaasuu salaad dhan ku dhamaysto ku tukaday saxaabada tujiyay isagoo gabadhii kor u hayay markuu rukuucayo uu dhigaa markuu sujuudayo uu dhigtaa markuu soo istaagayna kor buu soo qaataa halka isagoo ku hayo salaada ku dhameystay nabigu sallallahu alayhi wasallam gabadhiisa Faatima nabigu sallallahu alayhi wasallam ali dad buu ugu jeclaa Faatimatu bad'atun minni Faaduma waa gabal iga mid ah nabigu sallallahu alayhi wasallam wixii xumaynaya waa xumaynaya sooma wixii xumaynaya waa xumaynaya wixii dhibayana waa dhibaya nabigu sallallahu alayhi wasallam marka gabdhaha waa karaamay diintu waa karaameysay dulligii bay ka qaaday dulmigii bay ka qaaday xumaantii iyo jaahiliyadii bay ka qaaday madarajo sarana waa geysay hatta wiilasha meel aan la geenin baa la geeyay waxa xaq loo siiyay markay guursanayso ninka ay guursanayso ee nolosha la wadaagay xaq waxa loo siiyay in lagu qasbi karin gabdhaha qasbina haday yar tahayna idan weydiiya haday weyn tahay oo muxuu ahaayay nin hore ay soo martayna amar weydiiya saadaradeed baa nabiga waxa sallallahu alayhi wasallam intuu gabadh aabaheed guuriyay isagoon kala tashanin oo tala galinin ay nabiga u timi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri khiyaar baad leedahay xor baad ama aabaha yeel ama hadda doonto waa diidi kartaa wax la yiraahdo xoog qasab ku yeel ma jirto صح waalidku inuu tala ku yeesho oo amarkiisa ay ka dambayso waa loo baahan yahay laakiin cidda nolosha la wadaagaysa
ay guursanayso waa inay xaq u yeelato doorashadiisa meeshaas wax badan baa inaga sooma badan baa inaga odayaasha iyo muxuu ahay waalidiinta iyo awliyaa umuurka iyo gabdhaha waa la qasbi kadibna markii la qasbo sirix bay ku noolaan ilaa wixii muxuu ahaayay yani waxa way qanaaco iyo rido mayna ku gelin guriga marka shariicadu waa diiday waxa la leeyahay gabdhaha yani wax weeyaan tala galiya waxa uu islaamku karaamiyay sidoo kale haweentu markay xaas tahay hooyu karaamiyay gabadhna waa karaamiyay xaasna waa ku karaamiyay oo seebu ku karaamiyay nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi haweenta saalixada ee zawjada ah wuxuu ka dhigay diintaadiiba niskeed baa laga dhigay xadiidka nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu man razaqahu Allahu imra'atan salihah faqad a'anahu ala shatri dinihi falyattaqi Allah fi shatri thani ruuxi ilaahay uu siiyo haweenay wanaagsan ilaahay wuxuu ugu kaalmeeyay diintiisa niskeed ee niska kale ilaahay ha uga boqo awfis xaaskii waa diintaada niskeed khaasatan markay tahay haweenay wanaagsan sacaadada iyo liibaanta nabigu markuu sheegay sallallahu alayhi wasallam wuxuu liibaantu waa saddex المرأة الصالحة والمسكن الواسع والمركب الهني هويني وناكسن حاس وناكسن iyo guri waasacoon ciriiri kugu ahayn iyo gaadiid hayin oo ku ogol saddexdaasi waa liibaanta nolosha nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu horeeya almar'atu salihah islaamku dumarka markay xaas tahay wuu karaameeyay ugama dhigin ragga adoon say doonaan ay ka yeelaan bal wuxuu ka dhigay inay tahay ibni aadan xuquuqdiisa leh waajibaadna saaran yihiin ayada iyo ninka nidaam baa loo sameeyay xuquuq ka dhaxayso labadooda mid walba laga rabana waa jira xuquuq ninka laga rabo xaasku ku leedahayna waa jira xuquuq xaaska lagu leeyahay ninku ku leeyahayna waa jira bini aadan karaamaysan baa laga dhigay rabbigan tabaaraka wa tacaala wuxuu yiri walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf walirrijali alayhinna daraja waxay leeyihiin xuquuqda lagu leeyahay iyaga ee raggu ku leeyihiin mid lamid ay ragga ku leeyihiin iyaguna xuquuqda mid lamid ah bay ragga ku leeyihiin raggana hal darajay u la dheerihiin walirrijali alayhinna daraja maxay darajadaasi waa qawaamadii waa mas'uuliyadii guriga waa sooma taa iyada ah looma sinaan karaba ma dhici karto wax la yiraahdo guriga haweentuna waa amiirad adiguna amiir baad oo de markaasi ma waxba soconay ya anta amiir wa ana amiir faman yasuuqu alhimar ya markaa soconay ya talinayo taasi ma soconayso ibni aadan wax ka dhaxeeyaan walow laba ruuxna ha noqotee waa in uu jiro nidaam iyo kala dambeyn uu jiro noloshu saasay ku socon kartaa marka taasi waxa keenaysa xikmadda keenaysa rabbigan tabaaraka wa tacaala soo tilmaamay laakiin xuquuqdii inta ay raggu leeyihiin bay iyaguna leeyihiin xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam fi hajjati alwadaa' markuu dardaarmayay ummadda la hadlayay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ala wa inna lakum ala nisaa'ikum haqqan wa li nisaa'ikum alaykum haqqan war dumarkiina xaq bay idinku leeyihiin idinkuna xaq baad ku leeyihiin xuquuqda dumarkiina ilaaliya iyaguna xaqiina ha ilaaliya xuquuqdii baa sida loo sheegay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam istawsuu bin nisaa'i khayra war dumarka khayr u dardaarma dumarka khayr kula dhaqma waashiruhunna bil ma'ruf wanaajiya dhaqanka la dhaqmaysan laba arimood buu nabigu sallallahu alayhi wasallam yiri iska jira laba arimood aad uga taxadara oo daciifa labada daciif ee tabarta daran waa agoonka iyo haweenta labadaas xuquuqdooda iska jira buu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ragaba akhyaarnimadoodaba qiyaas uga dhigay miisaanka lagu garto ninku inuu akhyaariye waa inuu reerkiisa akhyaar u yahay khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli nabigu sallallahu alayhi wasallam ka idinku fiican waa ninka reerkiisa ugu fiican anuna waxaan ahay midka reerkiisa ugu fiican ayaan ana idinku fiican reeraha sooma markii Umar uu nabigu sallallahu alayhi wasallam rasuul ilaahay nabigu wuxuu reebay dumarka ha garaacina buu markaasaa guryihii waxaa ka dhacday dumarkii inay ragga ku dhiiradaan Umar baa nabigu sallallahu alayhi wasallam markaasuu ya rasuulallah dhairna an-nisaa 'ala ar-rijaal raggi dumarka waa ku dhiiradeen la garaacin bay maqleen hawshii qasantay markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ayuu fasaxay
markuu fasaxay baa nabiga gurigiisii waxaa yimid dumar fara badan oo dacwoonay oo ka dacwoonay raggoodii oo garaacay markaasuu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam dumarka garaacina ulaa'ika laysuu bikhiyarikum nabi sallallahu alayhi wasallam ragga dumarka u gacan qaaday akhyaartiina ma aha nabi sallallahu alayhi wasallam akhyaartiina ma aha marka waa ka dardaarmay waa ka hadlay isaga la dhaqmi jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam alayhi marka kullu dalika waxay ku tusaysaa inuu islaamku hooyada karaameeyay oo gabadha karaameeyay oo xaaska karaameeyay oo xuquuq siiyay oo iltizaamaad siiyay oo waajibaad siiyay oo jid cad mariyay haddii aynan hooyo ahayn oy walaal tahay ayadana sidoo kale waa la karaameeyay haddaynan nin lahayn oy armalo tahay carmal tahay ayadana waa la karaameeyay oo nabigeenu heer wuxuu gaarsiiyay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu yidhahda as-saaci cala al-armalati wal-miskiin kalmujaahidi fi sabiilillah ninka ka shaqaynaya miskiinka iyo haweenta aan ninka lahayn masaalixdooda ka shaqaynaya oo u taagan wuxuu la mid yahay sidii ruux ilaahay jidkiisa ku jihaaday oo kale kaasuu la ajriya marka haweenimo dayacna way sharfan tahay way karaamaysan tahay islaamku waa sharfay wuxuu ku sharfay wuxuu ilaaliyay akhlaaqdeeda wuxuu ilaaliyay diinteeda wuxuu ilaaliyay magaceeda sida markuu islaamku u sharfay ayaa walil asaf gabdhihii muslimaadka waxay garan waayeen karaamaynta iyo sharafka islaamku uu siiyay markaasay sharaf waxay ka raadiyeen dhaqamo kale iyo mabaadi' kale walil asaf waxa looga murka waay dad ku talagalay inay dumarka ka ganacsadaan kuna ganacsadaan ayaa dumarkii maskaxda ka xaday maskaxda lagaga soo duulay maskaxda laga xaday markaas waxa lagu yiri islaamku waa idin dulmay mid baa baraarujin mudan dumarka haddii la dulmay oo mujtamacaadka muslimka maanta jiray qaar ka mida dhexdooda lagu dulmay ma islaamka dulmay oo eedda iska leh mise mujtamacaadka dulmo oo eedda iska leh ya mujtamacaadka khaladka iska leh khaladkaasina wuxuu ka yimid ka fogaanshaha diinta laga fogaaday soo ma haddii xuquuqdoodii la duusiyo la dulmiyay oo tabardarrada darteed loo dulmiyay ma aha wax islaamka ka yimid ee waa wax ka yimid islaamkii oo laga durkay eedda marka diintu male islaamkuna male allana male tabaaraka wa tacaala laakiin waxa iska leh mujtamacii ama ciddii waxaa samaysay gabadha muslimadda marka waa inay fahanto waa inaan loogu sheekaynin waa lagu dulmiyey oo waa lagu xaqiray oo waa lagu yasay karaamo iyo sharaf oo dhan baa loo tusay inay xunto guriga in la joogo oo sharafkii gabadha muslimadda waxaa loo tusay inay tahay nooc xanibnaan xabsi baad ku jirtaa baa leeyahay waqarna fi buyutikunna waxaa la yidhi gurigu waa xabsi naa xabiska ka baxa oo xageen aadaa naa banaanka usoo baxo kaalay shaqayso kaalay malqacad aad wax ku cuni lahayd raadso saxankii aad raashinka ku raadida kaa raadso ninka ku qabana sidoo kale isaguna muxuu ahaay markuu uu keeno digsiga dabka la saarayo markuu keeno adiguna wixii lagu karin lahaa inaad keento soo saas ma markuu saxankii lagu ridi lahaa keeno malqacadihii lagu cuni lahaa qaadadii adiguna waa inaad keento soo ma waa laga faa'iideystay waxaa loola dhaqmay sidii xayawaan aan karaamo lahayn oo kaleeto inay meesha ka hesho banaanka ka hesho yeydu iyo waraabuhu ka helo oo sidii la doono lagu sameeyo oo maryaha laga dhigo karaamada laga dhigo oo sharikaadka iyo ganacsiga lagu xayeysiisto halkaas la gaarsiiyay markaas waxa looga dhigay in la sharfay waxa xusid mudan oo kaga bixin insha Allah taala waqtiga dhamaaday qodobo dhowr jira oo shariicadu ku kala duuday rag iyo dumarka oo inta badan gaaladu markay dumarka diinta ku dirayaan ay inta badan isdul taagaan qodobadaasina kala duwidda la kala duway labadooda kala duwan Allah tabaaraka wa ta'ala soo quraanka kuma sheegin walaysa adh-dhakaru kal untha isku mid ma labka iyo dhadigu dhanka yaani abuurka isaga mid ma waana wax muuqda Sooma waa wax muuqda yaani wax weeyaan gabadhii markay dhalato jidhkeeda iyo qaabku u sameeysan yahay iyo xooggiisa iyo qaabku u yaala iyo isbedelka jidhka ku imaanaya iyo korideeda iyo
way ka bedelan tahay ninka soo saas ma wax gaala wax ka qaban kartana maaha allihii abuuray baa ugu talagalay dabeecadda ilaahay ku abuuray iyo takwiinka qaabkay u samaysan tahay iyo qaabka raggu u samaysan yihiin baa kala bedelan mid walba axkaam munaasib ku oo khaas ku ah jirta marka waa abuurkiisa iyo qaabka u samaysan yahay dabeecaddiisa iyo wax badan ku salaysan laakiin dad badan aan fahmayn waxaa ka mid ah masalan muxuu ahaayey nebinimada iyo risaalada raggaa lagu khaas yeelay xikmad baa ku jirta mase aha yasid maaha ragga dumarka la yasay jihaadka farad yeelidiisa raggaa lagu khaas yeelay dumarka waajib ka dhacay waa miyaa la yasay maya qawaamada iyo guriga taladiisa ninkaa loo dhiibay waana daruuro laga maarmaana xikmad cad bayna leedahay macnaheeduna ma aha in haweentii gurigana la yasay maaha markhaati furkeeda masaa-isha qaarkood ama arrimaha qaarkood waxaa laga dhigay ninka niskii xikmad bayna leedahay daahiro la garanayo dhaxalkeeda inta badan waxaa laga dhigay mid ka yar dhaxalka ninka xikmad bay leedahay la yaqaano xikmad iska cad bay leedahay markii loo fiirsado la darso ninka iyo haweenta wax loo qaybiyey haweenta kasad badan xaqiiqada marka la yidhahdo laakiin waynaan fahmayn waan la fahmayn مثال يرى أن نسيه مثلا ولو وقت ولا ماذا وقت محور عن مثال يعني نسيه مثلا ويل iyo gabadh ba aabahood ka dhintay wuxuu ga dhintay 1500 oo euro wiilkii wuxuu qaadanayaa meeqa kun buu qaadanaya gabadhiina 500 bay qaadatay طيب gabadhii 500 markay qaadatay waa la soo doonay waa la guursaday shanteedii 100 waxa loogu darayaa meher soo saasma gurigay degi lahaydna waa loo diyaarinayaa shanteedii 100 iyo meherkeediina account-kay dhiganaysa soo ma nolosheedii oo dhanna ninkanay saaran tahay ninkii kun ka qaatay aanu nimaadno ya war ninkii kun ka qaatay reer buu yeeshay maxaa ka dambeeyey kunkiiba meher baa looga qaatay maxaa u laaban gurigii dhisidiisii mas-uuliyaddii gabadhan walaashii iyo lafteeda hadday banaanka ku soo dhacdo isagaa mas-uulka ah soo ma keebaa sadburin la siiyey marka masaa-ishu kulli sidaas waay kulli masaa-ishu waa noocaas laakiin macnaheedu waxa weeye gaalaa buunbuunisay si xunna u dhigtay annagana maanaa fahmin khasaa'istaasa marka jirta waxaa ka mid ah haweenta diyadeedoo kale magteeda ayadana waan faahfaahin lahaa haddaan waqti helay waxaa ka mid a masalan furitaanka oo ragga gacantooda ku jira xikmad bay leedahay waxaa ka mid a maamulka sare ee muslimiinta jagada ugu sarreysa in ragga lagu khaas yeelay iyadana xikmad bay leedahay waxaa ka mid a masalan waajibaadka qaarkood oo dumarka laga riday sida jumcada iyo jamaacaadka iyo soonka mararka qaarkood iyo salaada iyo yacni waxa weeye dabeecaddeeda waay waxay leedahay dabeecado ayna raggu lahayn oo keenaya in waajibaadka qaarkood laga dhaafo soo saas ma marka wixii lagu kala duway oo axkaamana xikmad baa keentay uuna gaal iyo gaala raac fahmi karin intii badnaydna iyada iyo ninku waa isaga mid intaasi waxaan u malaynayaa inay ku filan tahay ciddii wax fahmi karta haweenka siduu rabbi u karaameeyey islaamku u karaameeyey makaano u siiyey u sharfay wax loo dhiga ma jiro horaanna mabda' la mida ma jirin islaamka ka hor islaamka kadibna mabaadi'da soo baxday mabda' la mida islaamka oo dumar saa u karaameeyey la heli maayo laakiin gabdhaheenna iyo hoyooyinkeen allaha fahansiiyo ilaahay tabaaraka watacaala allaha ina garansiiyo ilaahayna tabaaraka watacaala sharka shaytaanka kiisa insiga iyo jinnigaba allah inaga qabto guryaheenna allah inoo xifdiyo gabdhaheennana allah inoo xifdiyo hooyooyinkeen iyo xaasaska allah inoo xifdiyo ilaahay tabaaraka watacaala karaamada iyo sharafkaasi allah ku ilaaliyo baarak allahu fiikum jazakum allah khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu